kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 7 bisha Diseembar sanadka 2025 waxaan ahay Cabdicasiis Barrow ku soo dhawaada mar kale iyo qubanaha caawa ee Barrow Show sheekooyin xiiso leh oo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaa barnaamijkan idinkugu haya waxaana kamid ah carabtii dabankii lala raadinaya hadda ayaad moodaa in ay ku dhaceen taliyaha guud ee ciidamada militariga ah ee nidaamka Israel ninka lagu magacaabo General Eyal Zamir waxa uu ballan qaaday maanta mar uu gaaray magaalada Gaza in qadka jaalaha halka loo calaamadeeyay in ciidamada Israel ay ku sugnaadaan waxa uu yiri kama baxayna halkan waa xuduudda cusub ee nidaamkeena qayb kamid ah magaaladaasi hadda waxa u muuqata Israel inay gacanta u gashay xilli dawladaha carabta ay baaqiya dhaleecayna hawada marinayeen maalmihii ugu dambeeyay haddaba suuragal ma tahay Trump iyo Mareykanku in damaca Israel ee cusub ay ka hor yimaadaan warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa oo warbaahinta caawa ay taxliilinayaan ayaa barnaamijka ku dul istaagaya khiyaaray qodobada kale aan idin haya waxaa kamid ah sida ay qorayaan qaar kamid ah warbaahinta wadanka Mareykanka Benjamin Netanyahu ayaa dalab u gudbiyay Washington uu ku codsanayo in la fariisiyo madaxweynaha wadanka Masar General Abdel Fattah al-Sisi nidaamka Israel maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka shaqeynayeen sida shacabka ku nool magaalada Gaza loogu furi lahaa halka loo yaqaan Rafah loona geey lahaa Sinaa si ay halkaasi ugu noolaadaan magaalada Gaza loo bedelo goob dalxiis ah oo ka caagan Falastiiniyiinta haddaba Sisi ma aqbali doona arrintan ma lacag baa lagu gorgorinaya sidee arrintan ay suuragal u tahay inay u dhacdo barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan caawa isla Masar waxay leedahay ma aqbali doono ku xadgudubka dhulka Syria ee nidaamka Israel iyada ayay midida madaxa ka saaran tahay markaad eegto sida ay wax u socdaan laakiin dhinaca Syria ay leeyihiin waa difaacayna marka la eego hadalka ka imaanaya wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Masar wasiirka hore ee amuraha dibadda ee wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxa uu ku dhawaaqay in wadankiisa diyaar uusan u ahayn dagaal uu la gala Israel balse uu yiri awood buuxda baan u leenahay nidaamkaasi guud ahaanba in aan waqti kooban ku soo gabagabayno khiyaartii nala socotay wararka diblomaasiyadda dunida iyo gobolka bariga dhexe ayuu barnaamijkan si gaar ah ugu dul wareegi doonaa si aad macluumaadkan iyo warar kale oo dheeraad ah aad ula socotaan ha ilmaamina YouTube inaad subscribe saartaan haddii aad Facebook nagala socotana ku soo biira oo follow soo dhaha qaybta hoose ee faallada ama commentigana aragtidiina ku qora aad baad u mahadsantiin ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonaysa inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu wakhtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteena www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare waxaan ku hormarayaa dhinaca iyo waliba ciidanka Israel caawa warka ka yimid taliyaha militariga ugu sarreeya nidaamka Israel ninka lagu magacaabo General Eyal Zamir ayaa waxa uu ka hadlay damaca ku aadan Israel ee dib u qabsashada dhulka dagaaladu ay ka socdeen muddada dheer isagoo galinkii dambe maanta booqanayay halka loo yaqaano goobta jaalaha ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada Israa'iiliyiinta magaalada go'doonsaneed ee marinka ee muddada dheer colaaduhu ay ka taagnaayeen waxa uu ku tiraabay in haba yaraatee halkaasi aysan ka bixi doonin ciidamada oo ay yihiin aagga hore ee difaaca dagaalka suuragalka ah mar walba Israel in lala galo arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo qaar ka mid ah dawladaha waaweyn ee adduunka iyo sidoo kale kuwa bariga dhexe ay ku doodayeen in dagaalka la soo gabagabaynayo ujeedaduna ay tahay in la rabo in halkaasi laga saaro ciidamada Israel laguna bedelo kuwa kale
ee caalamku uu keeni doono. Zamiir oo hadlaya wuxuu yidhi waxaan ka shaqaynaynaa ciribtirka hanjabaadaha inaga dhanka ah. Goobtan jaallaha ah waxa uu hadda u shaqaynayaa sidii xuduud cusub oo kale. Waa difaaca hore ee u yaalla goobtan iyo goob kasta oo lagu qaadi karo weerarada, ayuu ku yidhi ciidamada markii uu la hadlaya tan oo moraalka ciidamadiisa kor u qaaday, laakiin bahdilaad ku noqonaysa dowladihii ka shaqaynaya wadahadalka iyo weliba xasiloonida oo ay ugu horreeyeen Turkiga, Qatar iyo Masar oo dadaaladan dhexdhexaadinta ka shaqaynayay. Marka laga hadlayo heshiiska cusub ee Gaza ka socda, Samiir waxa uu qiray in isku dayga wejiga labaad uu ku jiro ka bixitaanka qadkan jaallaha ah, balse waxa uu ku adkaystay in Israa'iil ay u aragto qadkan cusub xuduud cusub oo muhiim u ah amniga qaranka nidaamkeeda, sida uu hadalkiisa mar kale u dhigay. Dhinaca kale, siyaasadda Israa'iil ee dhulqaadashada ah ayaa ku soo aadaysa iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu markii maanta uu la kulmayay wasiirka koowaad ama guddoomiyaha ninka ugu hogaamiye baa layidhi waddanka Jarmalka Friedrich Merz uu ku sheegay in daanta galbeed qaadashadeeda weli ay tahay mowqif Israa'iil aysan ka tanaasulin, ujeeddaduna ay tahay inay si weyn ugu dadaalayaan si ay taasi u sii socoto. Arrimahan oo dhan waxay ka hor imaanayaan dhismaha dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo si weyn uga hirgasha gobolka Bariga Dhexe, taas oo ah yoolka ugu ballaaran oo ay naawilayaan waddamada Islaamka iyo dowladaha Carabta. Marka la fiiriyo isla wararka gobolka Bariga Dhexena, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dalbaday in uu la fariisto hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka Masar, General Cabdi Fattah al-Sisi. Dalabkan ayaa la hordhigay dalka Maraykanka iyo Donald Trump si uu arrintan uga shaqeeyo xilli maalmihii ugu dambeysay madmadow siyaasi ah uu labadan dhinac soo kala dhex galay. Sida uu daabacay bogga Maraykanka wararka faafiya ee Axios lagu magacaabo, aqalka cad ayaa sheegay in uu diyaarinayo dadaal lagu fududeynayo kulan u dhexeeya madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Sida uu sheegay mas'uul Maraykan ah iyo weliba ila Israa'iili ah oo xusay boggan uu soo xigtay Axios, waxa uu leeyahay Netanyahu ayaa u gudbiya maamulka Maraykanka rabitaankiisa ah inuu la kulmo Sisi, balse labada dhinac waa dowladda Masar iyo Israa'iil ayna marnaba muhiimadda sare u siinayn arrintaasi, iyadoo maalmihii ugu dambeysay dowladda Masar ay dadaal adag ku bixinaysay sidii Israa'iil ay uga hor iman lahayd tallaabooyin ay qaadaysay oo mararka qaar halis gelinaya madax bannaanida waddanka Masar. Warbixintu waxay xustay saraakiisha Maraykanka ah in ay aaminsan yihiin in uu Netanyahu marka hore oggolaanayo heshiis istiraatiiji ah oo gaaska la xiriira oo uu la galay dalka Masar, taasi oo Israa'iil ay joojisay, inuu qaadayo tallaabooyin kale oo kalsooni dhis ah si loo helo oggolaanshiyaha al-Sisi oo lasoo tuugtuugo si uu kulanka qayb uga noqdo. Mas-uuliyiinta Maraykanka waxay sheegeen in heshiiska gaaska uu noqon karayo fursad weyn oo Israa'iil u horseedi karaysa xiriir dhow oo ay la samayso dalka Masar, islamarkaana aysan dhicin baa layidhi ku lug lahaanshiyaha nabadeed ee labada dhinac. Diblomaasiyiinta dhaqaaluhu waxa ay tilmaamayaan in dalabkan ka imaanaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu uga baxo go'doonka siyaasadeed uu ku galay gobolka Bariga Dhexe, maadaama Masar ay ka mid tahay dowladaha quwadda leh ee hadda sida weyn isku hayaan Israa'iil. Haddaba doorka Maraykanka iyo Jared Kushner muxuu noqon doonaa marka la fiiriyo dalabkan ka imanaya Israa'iil? The Axios wargeyska lagu magacaabo ee Amerikaanka waxa uu leeyahay warbixintu waxay tilmaamaysaa in Jared Kushner oo ah la taliyaha Maraykanka ee Donald Trump uu Netanyahu kula taliyay in Israa'iil ay dagaalka kadib muujiyaan waxa ay gobolka u soo kordhinayaan halkii ay ku ekaan lahaayeen mowqif taban oo si weyn looga hor yimaado, iyo in dalalka gobolka aysan rabin hadalka oo dhan loo wareejiyo arrimaha Iiraan, balse ay xiiseynayaan fursado ganacsi iyo iskaashi dhaqaale si Carabta loogu hodo lacagaha ay doonayaan iyo dhaqaalaha. Iyo Netanyahu uu ku bilaabo Masar maadaama uu door hogaamineed ku lahayd heshiiskii xabad joojinta Gaza, islamarkaana uu fududeeyay soo celinta
27 ka mid ah 8 oo ah dadkii la haystayaasha ahaa iyo 28 ka mid ah meydadka ciidamada Israa'iil ee la haystay. waqtigan aynu hadda ku jirno xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo nidaamka gacan ku samayska ee Israa'iil waxa uu muuqanayaa in uu aad u sii xumaanayay tan iyo marka damaca labalabaynta ah ee Tel Aviv uu aad u sii kordhay. haddii aan fiiriyo wararka kale aan idin hayana dowladda Masar waxa ay soo saartay war ay guntiga dhiisha isaga dhigayso oo ku saabsan in marnaba aysan aqbali doonin waa sida ay leeyihiin ku xadgudubka dalka Syria oo nidaamka Israa'iil ay sameynayaan. xilli Netanyahu uu ku gorgortamayo in uu la fadhiisto hogaamiyaha waddanka Masar General Sisi, haddana wasaaradda amuraha dibadda ee Masar waxay leedahay ku xadgudubka dowladda Syria waa taabashada madax bannaanida waddanka Masar. dowladda Qaahira ayaa maanta ku dhawaaqday inay si buuxda oo aan lexleexad lahayn uga soo horjeedo dhammaan weerarada Israa'iil ay ka fuliso gudaha waddanka Syria. sida uu sheegay wasiirka amuraha dibadda ee Masar Badri Cabdilcaadi intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay dhiggiisa Asad al-Shaybani ee wasiirka amuraha dibadda ka waddanka Syria, kaasi oo ka dhacay kulan doceed barbar socday madasha Dooxa ee 2025 oo Qaahira ay ku lahayd mowqif cad oo muujinayay in arrinta Syria ay tahay mid lama taabtaan. Masar waxay gebi ahaanba diiday wax kasta oo saameynaya madax bannaanida waddanka Syria iyo ku xadgudubka Israa'iil ee dhulkaasi siday hadalkeeda u dhigeen. mowqifka Masar ee Syria waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Masar waxaa lagu yidhi waxaynu ku adkaysanaynaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta madax bannaanida Syria. waxaynu sidoo kale taageeraynaa hay-adaha dowladeed inay gutaan waajigooda amniga iyo weliba ilaalinta xuquuqda shacabka. waxaynu ka digaynaa baa lagu yidhi in xaaladda hadda ka taagan faragelinta lagu haya waddankaasi ay tahay mid taabanaysa sidoo kale madax bannaanida jamhuuriyadda carbeed ee Masar, taas oo muujinaysa in xaaladdan ay hadda aad uga sii darayso. wasiirkii hore ee amuraha dibadda ee waddanka jamhuuriyadda islaamiga Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu ku dhawaaqay in waddankiisa marnaba uusan doonayn wadahadal uu la galo iyo dagaal midna nidaamka Israa'iil, balse waxa uu yidhi haddii Israa'iiliyiintu ay tallaabo qaadaan waxay ka dhigan tahay inaan si degdeg ah u jawaabi karayno. wasiirka hore ee amuraha dibadda Iiraan Maxamed Javad Zarif waxa uu yidhi in dalkiisa uusan hadda raadinayn dagaal ama iska horimaad toosa uu la galo nidaamka Israa'iil, balse uu leeyahay awood buuxda uu kaga jawaabi karayo weerarada haddii lagu soo qaado waddankiisa. Zarif oo waraysi siinaya wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu News Agency isagoo ku sugan madasha Dooxa ee ka dhacaysa magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ayaa waxa uu sheegay in xiisaddii ugu dambaysay Israa'iil ay ka timid fahan la'aan siyaasadda oo ay si iska tuurnimada waddankiisu ay ku weerareen, laakiin waxa uu yidhi dhammac rasaaseed ayaa la leefsiiyey, taas oo sababtay in damacoodii iyo gardarradii ay wadeen ay hoos u dhacday. Iiraan dagaal ma raadinayso, laakiin haddii Israa'iil ay mar kale soo weerarto waxaan xaq u leenahay inaan isdifaacno. Israa'iil waxay si qalad ah u qiimeynaysaa adkaysiga shacabka waddanka Iiraan, ayuu ku yidhi waraysigiisan oo uu ka muuqanaya inuu ku hadlayo luqad diblomaasiyadeed oo aad u fog. wuxuu intaa ku daray in dalka Iiraan ay muujinayaan dulqaad iyo adkaysi uu ka hor istaaga buu yidhi Israa'iil inay gaarto yoolashii ay damacsaneyd oo ah sida uu sheegay in xukuumadda kacaanku ay hogaaminayaan meesha laga saaro. 23 ilaa 25 Juun sanadka 2025 Israa'iil waxa ay weerar ku qaadeen gudaha waddanka Iiraan iyagoo bartilmaameedsaday xarumaha Natanz, Asfahan iyo weliba Fardo oo ah goobaha sida gaarka ah loogu warshadeeyo nuclearka. weerarkaasi markii dambe waxaa ku soo biiray Maraykanka, wixii ka dambeeyana waxa uu dagaalka noqday mid la soo gabagabeeyey. hadalkan waxa uu u muuqanayaa inuu yahay mid aad u xiiso leh marka lagu aqriyo luqadda diblomaasiyadda, dhinaca kalena ah fariin hanjabaada oo dowladda Iiraan ay ku leedahay Israa'iil waa waxba yahay marka la fiiriyo gobolka Bariga Dhexe. ikhtiyaartayna la socota ay tibinta qaybtan iyo qubnaha Barrow Show inta ayaan ku abiyaa waa Cabdicasiis Barrow idile ha ilmaamina YouTube-kana subscribe saartaan. nabadgelyo.
ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar